safiirka cusub ee Soomaaliya Mudane Salaad Cali Jelle ayaa waxa uu socdaalkiisa ka bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Djibouti halkaas oo kulan kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf waxa uu ku wareejiyay waraqadihiisii danjiranimo ee dalkani Djibouti dowladda Soomaaliya uu soo wakiilatay kulan gaar ay ku wada qaateen xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Djibouti ayaa waxa ku helinayay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkani Jamhuuriyadda Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe waxayna ka wada hadleen mas'uuliyiintaasi iskaashiga cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Djibouti. kulanka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Djibouti oo soo dhaweynaha ayaa intaa kadib safiirka Soomaaliya ee dalkani Djibouti waxa uu dhaqaaqay dhinaca madaxtooyada dalkani Djibouti halkaas oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo warqadihiisa danjiranimo maanta si rasmi ah ugu wareejiyay safiirka cusub ee Soomaaliya Mudane Salaad Cali Jelle. mudane madaxweyne waxaan aad kaaga mahadcelinayaa aqbalaadii aad aqbashay xilka la ii magacaabay ee safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Djibouti. mudane madaxweyne xilkayga koowaad waxaan sii xoojin doonaa xiriirka labada dal haddii ay tahay siyaasadda iyo dhaqaalahaba inuu meel walba oo loo baahan yahay uu gaaro. mudane madaxweyne waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horumarka aad gaarsiisay shacbi weynaha reer Djibouti iyo dowladoodaba. ugu dambeyntii mudane madaxweyne waxaan ka codsanayaa inaad iga guddoonto warqadayda safiirnimo amba aqbalaada inaad iga guddoonto. aad iyo aad u mahadsan tahay mar labaad mudane madaxweyne. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaana Salaad Cali Jelle oo safiirka cusub ee Soomaaliya ay soo wakiilatay dalkani Djibouti uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle uga mahadceliyay dadaalkii uu muddo dheer u soo galay sidii Soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd. waxa uu sheegay in ay wax weyn u qaban doono muddada uu joogo dalkani Djibouti marka loo eego isku xirka cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhaxeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Djibouti. safaaradda Soomaaliya ee ku taal dalkani Djibouti ayaa muddo aad u dheer waxay ku taalaa dalkani Djibouti waana safaaradda labaad marka loo eego lambarka safaaradaha wadankani ku soo kala horeeyay waxaana ka soo horeysay safaaradda Faransiiska oo kaliya. Soomaaliyana waxay noqonaysaa talabaad ee dalkani Djibouti. Mikael Cabdirashiid Bare, Radio Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Djibouti.